muddo 8 bilood ka hor ayaa waxaa wadada igu qabtay laba gabdhood saaxiiba oo daris ah oo aad u xanaas markaas waxay yiraahdeen raggii baa nagu dirtay nin waalan baa tahay ilaahayna ka qabto waa fiiriyay waxaan ku yiri warad see wuxuu wadaan habaar meesha kuma jirin waxaan ka hadlaynay wax diin bil ka hor anoo odayaal la fadhiya meel hotel oo aan sheekaysanayno arrin aan ku jirno ayaa waxaa igu soo baxay labadii gabdhood laftirkooda waxaan joognaa howlkan alfajr la yiraahdo aroos lagu dhigaayo meesha aroos baa lagu hayay aroos gabar kale u socdaanayay saaxiibtooda odayaashii anagoo meel fadhiyno soo istaageen kulligan waa wada fiirinay waa la yaabnay gabdhaha meesha taagan wax xusuusta wejigoodii waxaan sida maanta talow ma rag dhexdooda ay ka rabaan inay kula dhacaan waxaan yidhi ninkaasaan naqaanaan u nimid waxaan u nimid inaan salaano waxaan rabnaa inaan u sheegno inuu horta nacafiyo kow waxay tiri mid ka mid waxay tiri anigu xaaskii afraad ana tanna waa xaaskii afraad gabadhaan u socono saaxiibteedana number 3 ay gelaysaa marka waxay tiri mahadbaad waa mahadsan tahay tiri waa lagu dhiirigelisay waxay siisay encouragement iyo shaqada inaan wado taas kaftankaan ugu gudbaya halkaas guulku waa muhiim laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa ganacsigaan ka hadlaynaa marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa wasiiradda soo qabanqaabisa arrintan iyo dhammaan magaalada ka shaqaysay iyo inta kasoo qayb gashay waa mahadsantiin markii la ii sheegay inaan kasoo qayb galo xafladan runtii I get excited oo ku farx sababtiina waxaan nin humble ah ragga iyo qaano badayfa iyo dhalinyarada taqaano qof hadduu wadada in istaagayna maanta waxaan rabaa kula sheekaysto soo bax ka faanka bixinaa leena oo fadhiisana wili kale qofku rabaha dadka isla weyn oo dadka diimeyn waayo waxaan wadnaa dhambaal dhambaalkaasi bulshada u gaarana waxaan qof walba aan la fadhiisato waana khuluqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga barta waxaan excited ku noqday ugu farxa arrintani because waxaan la hadlaya waa dhalinyaro because waxaan la hadlaya waa dad educated dad wax barta wey usually markaan qof aan waxbaranada laysan it's so difficult inuu ku fahmo like an educated individuals it's easier you can connect with them very easy si tartiib aan ku fahmi karta anigu waa businesska marka waxaan ku jiraa waa business expert bandhig ganacsi oo qofku uu usually kusoo bandhigo ganacsiga ku jiro si loo barto oo dadka kale ma ganacsanay kaara waa la bixiyaa caalamka wasaas sanadkastaan la sameeyo waxaan rabaa ka hadlo waxa weeyaan saaxiibkii thank you sababtiinba ganacsiga wadan inuu ganacsiga yeesho waa motorka wada awoodda iyo jiritaanka wadankaas waxaana sabab u ah in la helo factors ama conditions waxyaabo sabab wiilasha iyo gabdhaha quruxda badan ee meeshaan wada fadhiya dhammaantiin including me waxaan ka nimid waddankeeni qaarintay ku dhasheen laakiin inteena badan xagga ka nimid sababta aan uga nimid waxa weeyaan sababta diidan waddanka Soomaaliya ganacsigiisu ugu korko business wuxuu u baahan yahay first security in nabad la helo haddaan nabad jirin ganacsigaaga ama inaad haddaad inaad maalgashto waddanka ma maalgashi kartid it is impossible wuxuu u baahan yahay society bulsho wax baratay oo hore u wada waddankeena saad ogtihiin markay gabdhaha wiilasha halkan fadhiya waxaan aaminsanahay kuwa Soomaaliya ka yimid kulligood jaamacad ay ka soo baxeen markaad jaamacadda waddanka ka baxdid there is no hope you can't do anything so waddanka banaankiisa inaad dawo waxaa intaas sii dheer ma jirto dad bulshadiisa oo Soomaali ah oo u diyaarsan ama fahmi kara in xal loo helo dhibaatadaas caalamka waxaa la capital flight hadda Russia marka cunaqabataynta lagu sameeyey dhaqaalaha waddanka waa meesha laga dilay anaga cunaqabatayn anagu aan isaarnaan maxaana marka xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay waddankii in la helo nabadgelyo security so ninka ganacsiga ama lacagta haysta waddankii u maalgashto
waxaa loo baahan yahay in dadkii aysan ka soo qaxin oo ninkii wax bartay uusan ka soo cararin waddankii ama gabadhii wax baratay. That waxaa loogu baahan yahay in la helo political solution ama xal siyaasadeed oo u oggolaanaya nabad inay timaado, u oggolaanaya qofku waddankiisa inuu ku rajawan yahay, u oggolaanaya qofku waddankiisa inuu joogo. saad ogtihiinba annaga xisbiga tala ku nool haddii aan nahay waxaan keennay solutionkaas ama xalkaas. waxaa laga yaabaa axsaabta kaloo siyaasadeed marka lala hadlayo ama dadka markay la hadlayaan inay yidhahdaan aniga hadlay doorto anaa reer hebele, anagu reer hebel mali. waxaan leenahay philosophy iyo qaacido waddanka la rabo in ganacsigu horumaro, bulshadu horumarto, waddanku u dhismo. maxay tahay in lagu xukumo waddankeena Soomaaliya dastuurkeena, dastuurka islaamka ah, kitaabka jacayl sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Absolutely. haddaad wax kala raadiso waan ku daalaynaa ilaa iyo inta aan ka rumaysanayno xalku inuu kaas yahay. sidee markaa ay u xalinaysaa dastuurka islaamka? marka dastuur islaam la qaato oo diinta islaamka la isku maamulo waxaa imaanaya ammaan wax la yidhaahdo, nabadgelya imaanaysa. qofkii dembi gala dembigaas waxaa la ogyahay ciqaabtiisa. qof walba wuxuu helaya cadaalad buu helaya. cadaalad marka la helo, ammaanna la helo, waxaa imaanaya qofka Soomaaliga ahi meel kale oo ka macaan waddankiisa uu dobsanaya ma jirto. sidaa daraaddeed waxaa la samaynayaa investment waddanka wax la yidhaahdo, in dib loogu celiyo lacagtii. saad ogtiin maantay islii qofka maraya saraha dhaadheer ee ka dhisan waxaa la yidhahdaa kan yaa dhistay reer hebel, kan reer qurac, kan qasaxaa dhistay, kan hebelaa dhistay, kulligood waa Soomaali. billions of dollars. haddaad tagtid Tanzania, haddaad tagtid Uganda, haddaad tagtid Ethiopia, Djibouti, lacagtii Soomaalida lagu dhisay. Soomaaliyana hal guri laguma dhisi karo. Why? Because ninku xataa haddii uu damco ama gabadha lacagta dhiska hadday damcdo xataa inay ka dhisto meesha ku dhalatay, dadka ayada ay ka dhalataysan ka ammaan helin oo ka dhacaya lacagta. There is no security. qofka macnaha imagine magaalada uu ku dhashay hadduu rabo inuu lacagtaas geliyo ammaan kuma helayo dadkii uu ka dhashay asagaa ka dhacay, because cadaaladna ma jirto, ammaanna ma jiro. It is very simple. sidaa daraaddeed xalka waddanku wuxuu ku jiraa in lagu maamulo dastuurka islaamka, kitaabka jacayl sunnada rasuulka. waa waxa la wada ogyahay, waa waxaan qof weexanaynin, waa arrin iska cad weeyo intaasoo lagu soo dhaqmay. sidaa daraaddeed xisbiga tala ku nool sidaas ayaan waxaan u nahay dad hambla, dhulka la siman, aan isla weyneyn, rabo meel kasta inaan u sheegno qofka islaamka waddankeena xalkiisu meesha uu ku jiro. sidaas daraaddeed aan u imid maanta inta, sidaas daraaddeed aan ugu faraxsanaa inaan isoo horstaago, because qof walba meesha joogan aan u sheegay. waxaa kaloo intaasii dheer, caalamka maanta waxaa jira waxa la dhaho political realignment. 15 sano, 2015 dadkeena wax bartay waxaan fahamnay waddankeena macnaha caalamka siyaasaddiisu inay isbedelayso. caalamka siyaasaddiisu markay isbedelayso micnaheedu waxa weeye qofka Soomaaliga ah ee maantay Soomaaliya jooga, dadka intooda badan waxay ka cabsadaan, waxay ka dambeeyaan, waxay xushmeeyaan Westernka. waayo awooddaas haysta. It's now denied. It's a fact. We know that. drones u yaala badda markay rabaan ciday rabaan ay dilaan, ciday rabaan waa argagixiso, ciday rabaanna waa dad fiican. We know that. Now, that is changing right now since 2015. waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysataan. There will be quadrupolar political strategy in the world. caalamku wuxuu noqon doonaa 4 udub oo siyaasadeed awooda. maxay tahay afartaas udub? udubka koowaad China, Russia, Western world, Europe iyo America la isku daray, and the Islamic civilization. waqtigan xaadirkan ku jirno Iran, Russia, Indonesia, Pakistan, Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, they all building their military power to make sure marka ay dhamaato arrintan dagaalkan Russia iyo Ukraine ka dhexeeya inay taagan yihiin position aan la weerari karin. anaga marka maxaa nagaga su-aala arrintan? annagu waddan Soomaali nahay, waxaan leenahay fursad maanta aan iskula sheekaysano annagoon cabsan, fursad aanan ugu yeerin ninkii yidhaahda kitaabka jaamacan wada argagixisaada, fursad
gabadha xijaaban aan ku ammaano oo dhahno ayada ugu qurux badan fursad aan uga joogno wadamada kaleeto because maanta qofka Yurub jooga dhibaato ku nool yahay ma aqaandada Yurub ka jiro laakiin lacagtay soo diri jireen waa goosteen waxba kama soo socdaan ayaga baa ku nool dadkii diilka ka sugu jira xagga suun haddaysan goosan hadday goosanaan soo wadankaada inaad joogtid now waxay ugu soo celinaysaa businesska marka entrepreneurship business in la abuuro waa wax Soomaalidu ay caan ku yihiin caalamka meel kasta joogaan you know surprising thing was I know safar ku maraya and wadan la yiraahdo Honduras caasimadeeda Tegucigalpa ayaan waxaan tagnay meel market yaro laba gabdhood oo Soomaali saddex wiil meesha jooga fadhiya waa middle of Latin America ganacsiga ku haysta laba sano kadib aan ku laabtay xaafadan degan Soomaalida meel kasta caalamka tagtid qof Soomaaliya ganacsiga ku haysta waxaa la rabaa marka ganacsiga dadka Soomaalida ah inay helaan bayskii ama asaaskii siyaasadeed ee ganacsiga kor u qaadi lahaa because without that political base it is impossible ganacsigu inuu kor u kaco waa joogi kartaa 1 milyan maybe $500,000 ha laakiin to be billionaire there has to be a political infrastructure oo u ogolaanaya qofkaas inuu koro waxayna ka imaan kartaa kaliya in lagu xukumo wadankeena Soomaaliya dastuurka islaamka kitaabka jaamacada sunnada rasuulka waxayna nooga xiran tahay oo kaliya the only thing that we have to do is inaan dhahno waa u baahan we need in lagu maamulo kitaabka jaamacada waxaan u baahanahay inaan isku xukumo dastuurkeena marka aan qaadano dastuur dad kaleeto ama wadamo kaleeto waxaan dad ku dayanaya dad kaleeto Soomaaliduna aad ugu nacay arrinkaas many dadka ku daya in anaga aan ku dayda Soomaalidu we very proud caalamka meel kastoo tagtid waa loo yahay wadamadaas Englishka ku hadla waxa loo yaqaanaa skinnies caadku iyo caadada carabta markaa tagtid yaa warya Latin America markaa tagtid bontharos so dan la yaqaano waa courage people with the dignity and perseverance waxaan rabaa markayna ku soo gabagabeeyo mar waqtigan ku sii dheeraado inkastoo hadal iga buuxa wali haddana waxaan rabaa ganacsiga wuxuu u baahan yahay asaas siyaasadeed waxaan rabaa kulligiin inaad ka shaqaysaan qaabkii siyaasadda wadanka udbaha loogu taagi lahaa dhalinyarada yaa tihiin waqtigeeda joogtaan ha ugu sacbin qof because in adeerkaagu ugu sacbi xisbi markaad wax rabtid inaad siisid maxaad wadanka kusoo kordhinaysaa waa mahadsantihiin kulamadan oo kaleeto diyaaraan u ahay thank you very much assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu